tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Santiago Solari ayaa sheegay inuusan wax caqabad ah ku qabin ciyaaryahan kasta oo ku sugan garoonka Real Madrid ee ku ciyaarto Santiago Bernabeu. Real Madrid ayaa xalay 2 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Real Betis kulamada 19aad ee horyaalka dalkaasi Spain, waxaana ciyaaryahanka lagu magacaabo Karim Benzema oo ahaa mid xalito dhaawac soo gaaray. Dhaawacyada kusoo badanaya kooxda Real Madrid ayaa markaasi kordhaya kulamadii ugu dambeysay, waxaana Santiago Solari wareysi uu ka bixiyay marka uu ku sheegay inuu jiro dhaawac ka soo gaaray gacanta midig ciyaaryahanka lagu magacaabo Karim Benzema. Waxa uu dhaawac ka soo gaaray gacanta midig, waxaana go'aamin doona muddada uu garoomada ka maqnaan doono, waana arki doonaa ayuu yiri. Waxaan u qalanay inaan guushan gaarno Real Betis, waxaan haysanaa shakhsiyaad xoogan oo kubadda cagta, waxaan markaa u qalanay guush weyn aan gaarnay ayuu hadalkiisa kusii daray. Waa kulan aad u weyn, waxaa sidoo kale jiri doona kulamo waaweyn oo kooxda kusoo wajahan. Waxaan rajaynaynaa in meel wanaagsan aan soo istaagno, ma jirto dhibaato kaleeto oo ina haysata. Waxaa jiro tiro ciyaartoy oo kooxda dhaawac kaga maqan, laakiin waxay noqon doontaa wax iska hagaaga. waxaan haysanaa bedel fiican, waxaan rajaynaynaa inaysan taasina joojin doonin ayuu yiri. Hore ay ahayd markii xidigaha lafdhabarta ah Toni Kroos iyo Gareth Bale dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen kulamadii hore ay kooxda Real Madrid ay ciyaartay, waxaana xaaladda dhaawac kaleeto gacanta midig ka soo gaaray ciyaaryahanka lagu magacaabo Karim Benzema. walow warbixin sax ah aan laga soo saareen waqtiga uu sida rasmiga ah u maqnaan doono, inkastoo macquul ay tahay in kulamada soo aadanba uu kusoo bilowdo. Santiago Solari ayaa ugu dambeyn hadalkiisa kusoo afjaray in isagu aysan dhibaato ku haynin ciyaartoyda ka maqan, waxaana inta uu ku daray inay rajeynayaan dhammaantood in ay yihiin kuwa aad u wanaagsan oo kulamada soo aadan ay wajihi doonaan kooxaha ay la ciyaari doonaan.